لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa, waxaan idinku imtixaamaynaa khayrka, sidoo kale waxaan idinku imtixaamaynaa sharka iyo dhibaatooyinka. khayrku waa nooc ka mid ah imtixaanka ka yimaada ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa. allah subxaanahu wa tacaala addoonkiisa markuu u nicmeeyo oo wanaag iyo khayr uu siiyo, waxa uu fiirinayaa addoonku inuu ku shukriyo nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo inuu ku gaaloobo. sidoo kale addoonkiisa marka uu ku imtixaamo dhibaatooyinka iyo mashaakisha meel kastaa kaga imaanaysa, wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala doonayaa in uu muujiyo addoonkani iimaankiisa inta uu la egyahay, bannaanka inuu usoo saaro. ma yahay mid ku sabraya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminaya dhankiisa inuu uga yimi, mase wuxuu noqonayaa mid carooda oo ku carooda ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaankii uu ku imtixaamay, halkaasna ku noqda qof dhaca nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaankii uu ku imtixaamay ku dhaca. waxaynu nahay dad muslimiina, waxaynu aaminsannahay rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wax kasta oo inoo sheegay in ay yihiin wax run ah. wixii inooga warramay inay dhici doonaana inay sidee uu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay u dhici doonaan. masaa'ibi ma timaado ilaa sababteeda bini aadanka ayaa la yimaada. rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu sheegay qayb ka mida macaasida oo haddii dadku ay la yimaadaan ay dhalaysa macaasidaasi dhibaatooyin mujtamaca oo dhan saameeya oo ku habsada. waxaa ka mid ah abaaraha. maanta waxaa jira oo aan arkaynaa waddankeenii abaaro badan in laga soo sheegayo. webiyadii ayaa guray, durduradii ayaa qalalay, dadkii ayaa gaajo u dhimtay, xoolihii ayaa le-day. waxaasoo dhan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaab uu keena wey. waa imtixaam rabbi subxaanahu wa tacaala uu mujtamacan ku imtixaamayo. koonkan ilaahay subxaanahu wa tacaala iska leh, rabbi baa maamula. roobkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa amra. meeshii uu ku dego oo uu ku da-ayo ilaahay baa amarkiisa siiya, rabbi baana qabta jalla jalaaluhu marka uu doono inuu qabto. waxaa keena waxaasoo dhan marka wax ay la yimaadeen bini aadanku. musiibo ma dhacdo ilaa bini aadanka ayaa sabab u ah. waxaa jirta 5 khaslo ama 5 macsiyo oo rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi hal xadiid ku koobay, oo uu yidhi ummaddu markii ay sameeyaan arrimahan waxaa ka dhasha arrimahan. xadiidku waa xadiid saxiix ah. ibnu cumar radia allahu canhu waxa uu leeyahay, rasuulkan u nimi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi annaga oo 10 saxaabi ah ayaynu rasuulku u nimi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi. dhammaanteennuna waxaynu ahayn muhaajiriin. rasuulkaana soo qaabilay calayhi salaatu wassalaam. markaas ayuu asagoo nala hadlaya wuxuu yidhi: yaa macshara almuhaajiriin, 5 ida btuliitum bihin wa acuudu billahi an tudrikuuhun. maa daharat alfaaxishatu fi qowmin qad xataa yuclinuu biha إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم
إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحأوكو بالله المهاجرين شن شيء هدي لإذنكو امتحامه الله بان كما قال يا إني هلايشو أما إذنكو بأد قارتان رسولك كما قال maxay ku tusinaysaa khutuuradeeda, waxay ku tusinaysaa shantaa shay dhibaatada ay keensanayso inay aad u weyn tahay. ilaahay baan ka magangelayaa inaad shantaa shay aad gaartaan ama iyadu idin soo gaarto. shantaa shay markaanu fiirino marka oo si fiican aynu indhaha u saarno oo aynu fahanno, waxaynu dareemaynaa mujtamaceena maanta muslimka ah khaasatan kuweena soomaaliyeedii shantuba inay ku jiraan. wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam: lam tadhar alfaaxishatu fi qowmin qat xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim alطaacuunu waalawjaacu alatii lam takun madat fi aslaafihim aladiina madow. qolo ma samayso faaxishada waa zina oo bannaanka uma keento, ma soo daahiriso. hadday sidaasi dhacdo waxaa ku faafa dhexdooda daacuunka iyo jirooyin aan ku dhicin dadkii iyaga ka horreeyey, ummadihii iyaga ka horreeyey. jirooyin aysan maqal ama aysan weligoodii allahood arag ayaa dadkaa dhexdooda ku faafa. imise maanta waxaa jira jiro cusub adduunka oo ilaa iyo hadda loo la-yahay wax cilaaja, daawo loo la-yahay. jirooyinkaas qaar ka mid ahi awowayaashin maanta nool haddii la weydiiyo ma aysan maqal. maanta ugu horreysay idis ummadii horey maysa maqal. kansarkan maanta ummadeenii soomaaliyeed dhameeyey oo saan u faafay, soomaalidu aad iyo aad umaysan aqoonin. cudurro badan oo aysan awowayaasheen iyo dadkii naga horreeyay aysan maqan, weligoodna aysan arag, ayaa maanta mujtamacaadkeenii ku dhex faafay. maxaa sabab u ah? waxaa sabab u ah zinada suu rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh uu sheegay. wuxuu kaloo leeyahay midda labaad rasuulka caleyhi salaatu wasalaam: walam yanqusu almikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniina wa shiddati alma'uunati wa jawri sultaani calayhim. ummaddu markay wax kala gadanayso, baab almucaamalaad markay joogto, haddii ay qish la timaado, miisaankii hadday nuqsaamiso, kaylkii iyo baaggii haddii ay dhinto, rishwo haddii ay isticmaasho, musuqmaasuq haddii ay la timaado, fasaad haddii ay ku salayso baayac mushtarkoodii, ilaahay subxaana wa tacaala wuu ciqaabaya. waxa uu ku ciqaabayana waxaa ka mid ah abaar in lagu qabto, wa shiddatu lma'uuna, in sicir barar uu ku dhaco oo maciishadiiba ay goyn waayaan, lacagtoodii iyo maalkii ay haysteen inuu ku dhaco hoos u dhac, oo badeecadii ay soo u baahnaayeen oo daruuriga ahaa inay ka sarrayso. sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dadkaas ku imtixaamaa madaxdoodu inay dulmi iyo jawr ay kula kacdo. waa midda maantana haysata wey. wuxuu kaloo midda saddexaad rasuulku yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh: walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu alqadra min alsamaa walowla albahaa'imu lam yumtaruu. qowmku zaka ma bixin waayaan oo zakadii ma haystaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku salladaa iyagana roobka inuu ka qabto, oo roobkii ayaa loo diidaa, abaar baa ku dhacda. wuxuu allah leeyahay subxaanah: bahaa-im iyo xayawaan haddaysan jireenna roobba uma soo dejiyeen. maxaa yeelay bahaa-imta ayaa roob la-aanta ku dhimanaya, mana mutaysanoo iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala way u cibaadaystaan. wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum. ayaga naxariis oo allah u naxariisanaya subxaanahu wa tacaala ayuu roobka kusoo degayaa, laakiin zakada oo la bixin waayaaye waxay sabab u noqotaa roob inuu imaan waayo, oo dadkii ay biyihii ka guraan, webiyadii ay guraan, togagiina ay qalalaan. wuxuu kaloo leeyahay calayhi salaatu wassalaam: walam yanquduu cahda allahi wa cahda rasuulihi ilaa sallata allahu calayhim caduwan min gayrihim faakhaduu bacda maa fii aydiihim. ilaahay subxaanahu wa tacaala balantii ay kula jireen, rasuulka calayhi salaatu wassalaam balantii ay kula jireen,
ayaga dhexdooda ballantii ahayd qowm ballantaas ma buriyaan oo kama baxaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sallidaa cadow aan ayaga ahayn waa cadow aan muslim ahayn oo gaal ah oo khaariji ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sallidaayo wixii ay haysteen wax ka mid ah ayuu ka qaataa. war inaynu maanta shaahid u nahay oon arkayna weeye caasimadihii muslimiinta imisaa gacanta muslimiinta maanta ka maqan, haddii la tariyo imisay gaarayaan. cadowga maanta dhulkeenii qabsaday oo tharawaadkii iyo khayrkii iyo wanaaggii ummaddu ay lahayd qaadanayaay waxaa sabab u ah ummadda oo ka baxda ilaahay subxaana wa tacaala ballantiisii, dhexdoodii iskhiyaamay oo ballantii iyo cahdigii mawaafiiqdii ay dhexdooda ka taagnaana ayadana buriyey. tan ugu dambaysa wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wassalaam wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illaah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum. umaradooda iyo madaxdoodu kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma xukunto ilaa ilaahay ayagu isku diraa, dhibaato ayuu dhexdooda dhigaa. waa midaan maanta 26 sano dhexdeena taalla. ummaddu markay ka fogaatay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii ku dhaqankiisii baa ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadii dhexdooda dhigay. xalna waa la la'yah. sidee xalku ku yimaadaa? tii sababtay ayaa weli taagane. dhibaatooyinkan uu rasuulku sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh, jirooyinkan iyo amraadan uu rasuulka tashkhiisiyey, ummaddu ilaa ay ka laabato ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabka iyo imtixaanka wuu ku wadayaa. webiyadu sidaasay u gurgurayaan, durduraduna sidaasay u qalalayaan, cadowgunu sidaasuu khayraadkii muslimiinta u qaadanayaa, dhibaataduna dhexdeena sidaas uga taagnaanaysaa, jirooyinkuna saas ayay ummaddeena ugu dhacayaan ilaa ilaahay loo noqda subxaanahu wa tacaala. waxaanoo dhan maxaa looga bixi karaa? marka hore maxaa sabab u ah? saan u jeedna waa addunuubu walmacaasi. waxaa marka looga bixi karaa waa rabbi oo loo noqda subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddu u toobad keento si fardi fardi ah iyo si jamaaci ah. in ilaahay laga baqo subxaanahu wa tacaala. haddii allah laga baqayo maxaa dhacaya? ilaahay ummadda wuxuu u furayaa barakaadkii cirka iyo kuwii dhulka, khayr oo dhan bay helayaan. wuxuu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala walow ana ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard. dadka magaalooyinka degani haddii ilaahay subxaana wa tacaala ay rumeeyaan, iimaan haddii ay la yimaadaan, haddii ay rabbi ka cabsadaan subxaanah, ilaahay wuxuu u furayaa barakaadkii samada, wixii khayr oo ku jira cirka iyo dhulka ilaahay subxaana wa tacaala u furaya. sidoo kale waxaan ka saari kara waxa weeye istikfaarta, dembi dhaaf in ilaahay la weydiiyo subxaanah. allah wuxuu leeyahy subxaanah calى lisaani nabiyihi nuux faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursili الsamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. istikfaartu waxay dhashaa khayrka oo dhan. ay ugu horayso in ilaahay subxaana wa tacaala ummadda uu roobeeyo oo uu roob siiyo. wuxuu kaloo allah subxaana wa tacaala leeyahay isagoo ka warramaya nabiyullahi huud wayaa qowmi istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayh yursili الsamaaa calaykum midraara. waa qowmkiisu ku leeyahy nabiyullahi huud ilaahay ka baqa, istikfaarna la imaada, ilaahay subxaana wa tacaala roob badan ayuu idin keenayaa. intaas oo dhani oo aan marka hore sheegnayna waa maradkii iyo jiradii, inta dambena waa daawadii. ummaddan waxay u baahan tahay maadaama ay jiran tahay inay isdaaweyso. ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa dadkeena dhibaataysan iyo waddankeena abaarta ay ka jirto inuu roob keeno oo barwaaqo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo. ummadda waxaa laga rabaa marka iyaguna inay la yimaadaan roobdoon oo allah ay baryaan. way dhaceen, hadda meelo badan ayay ka dhaceen, waana sida wanaagsan. waa in lagu celceliyaa oo ilaah la baryaa subxaana wa tacaala inta allah subxaana wa tacaala ummadda uu dhibkan ka dulqaadayo. roobdoonta marka la aadayo oo lala imaanayo aadaab bay leedahay, sunan bay leedahay. maalinta ciidda aynu tukanayno waxaana loo suneeyey dhar qurux badan inaynu qaadano, inaynu maaragtay isnuurino, caraf badan dadku ay isku shubaan, dadku ay wajiye fiican isku qaabilaan, aad ummadda ay u farxaan. roobdoonta way ka duwanta. marka roobdoonta la aadayo waa in allah subxaana wa tacaala laisku dulleeyaa. rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi ibnu cabaas wuxuu leeyahay kharaja ila almusalla mutadallilan mutakhashican mutawaadican mutadarican. isagoo aad isku dulaynayo rasuulku meesha aaday salawaatullahi wasalaamu calayhi, isagoo muujinaya inuu ilaahay u baahan yahay jala jalaaluhu ayuu musallaha tigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. falyakrujuu bibidlati takhashuci maca rudacin wa rutacin wa rukacin. caruurtii la kaxeeyo oo dumarkii la kaxeeyo oo dharka la gashanayo ay noqdaan dhar aad iyo aad daliil u ah
waxaanu arkaynay maalmo dhaweyd markii la tukanayay gobolada ka mid ah Soomaaliya salaatul istisqaaga markii la tukanayay safka hore iyo safka dambeba sidii ciidiyo kale in loo soo labistay suud iyo tay in la qabo khamiisi cad in la qabo waa in la muujiyaa ilaahay subhanahu wa ta'ala baahi in loo qabo allah wuxuu ajiiba adoonkiisa dhibaataysan ee barya amman yujibu al-mudarra idha da'a rasuulkuna sallallahu wa sallam alayhi sidaasu aha markuu baxayo wuxuu muujinayay baahida ilaahay subhanahu wa ta'ala waa in dhulka la isdhiga xaakim iyo maxkuumba mid la xukumo iyo mid wax xukumaba waa in ay muujiyaan baahida ilaahay subhanahu wa ta'ala ee u qabaan sida daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayaa baaq aan u diraya dadka wax haysta ee ganacsatada ilaahay subhanahu wa ta'ala maalka siiyay meeshan iyo mowqican iyo xaaladan waa xaalad ay ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaan kartaan ummada ina biyo siisaan rasuulkuna sallallahu wa sallam alayhi aad buu amaanay fadli badan oo u sheegay qofka dadka waraabiya dadkaas ahalkeena ay waxay u baahan yihiin waraab u baahan yihiin haraad bay u dhimanayaan gaajo u dhimanayaan xoolii baa ka leeday soo rarid bay u baahan yihiin cunto u baahan yihiin biyo iyo baad in la gaar u baahan yihiin dadka cuqaasha ah iyo wax garadku inay u istaagaan dadkan baaba'aya oo xoolihii ka dhamaadeen oo beerihii ka qalaleen oo wabiyadii ay ka gureen oo maaragtay haba yaraateen noloshii waxba aan ka haysan rabbi waa idinku imtixaamaya subxaana dadka magaalooyinka degan khaasatan oo nicmooyinka ku jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ku imtixaamaya dadka baadiyaha degan dadkaas in loo gargaaro xaq bay nagu leeyihiin waajib bay nagu leeyihiin dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba gacanta intii la isqabsado musiibadan waxaa laga yaabaa rabbi subxaanahu wa ta'ala muddo yar kadib roobba inuu keeno laakiin xaaladan hadda lagu jiro adag haddii adigu biyo aad haysatid ilmahaaguna ay cunto haystaan walaalkaabaa jira aan biyo haysan ilmihiisuna aysan cunto haysan intaasaan damcay nafsadayda iyo walaalahayba inaan ku baraarujiyo allahna subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa walaalaheen roob degdeg ah inuu siiyo oo ay ku intifaacsadaan xoolahooda iyo nafsadooduba wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh